iyadoo ay si habsami u socdaan tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dib loogu hawlgelinayo oo Turkigu uu ka furinayo saldhigiisa militari ee magaalada Muqdisho ayaa saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga laanta propagandada u qaabilsan soo bandhigeen hub casri ah oo Turkigu farsameeyo oo la rajeynayo mustaqbalka in lagu qalabeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana ka mid ah gaadiidka BM-ka ee ta 122 Sakaria oo isagu xambaarsan dhuumaha gantaalaha rocket-ka tuura ee goobaha lagu duqeeyo waxa kale oo ka mid ah gaadiidka gaashaamani Cobra oo isticmaalaan ciidamada infantry-gu waxa kale ka mid ah gaadiidka ta 150 Firtina oo iyagu ah dubaabadaha gaashaaman ee bari cantaala ciidamada infantry-ga ee lugta waxa kale oo ka mid ah gaadiidka ta 300 oo dhuumaha sawaariikhda xambaarsan oo bartilmaameedyada cayiman lagu duqeeyo waxa kale oo ka mid ah diyaaradaha waxbasaasa ee drone-ka ee Savar oo farsameeyo dalka Turkiga waxa kale oo ka mid ah gawaarida gaashaaman ee autocar ZPT oo iyagu xabadu aysan karin oo gaashaaman waxa kale oo ka mid ah baabuurta BB-ga Soomaalidu ay u taqaal ee FNS Spars oo buuriya biriba ka dagaalami kara qoryaha mishigaanku ay ku rakiban yihiin waxa kale oo ka mid ah dubaabadaha Asinji oo iyagu ay isticmaali karaan ciidamada badda iyo kuwa infantry-gu waxa kale oo ka mid ah dubaabadaha aadka u layaabka badan ee Altay oo ka mid ah kuwa ugu casrisan dunida oo farsameeyo dalka Turkiga dubaabadan ayaa aysan karin baasuukaha iyo waliba miinooyinka dhulka lagu aaso waana dubaabado gabi ahaanba gaashaaman waxayna ka mid yihiin dubaabadaha ugu casrisan dunida waxa kale oo ka mid ah qoriga MPT 76 oo ah qori isagu darandoori u dhaca oo markaasi aanan kululaanayn oo aad ku geli karto lana geli karto badda iyo biyaha qabowgana aad ugu adkaysi badan waxa kale oo ka mid ah baabuurta gaashaaman ee street oo iyagu gantaalaha waxa kale oo ka mid ah dayuuradaha Kentley iyagu wax duqeeya waxaana ugu dambeyn ka mid ah diyaaradaha helicopterska ee qumatiga u kacay 129 attack haddii arrinkan uu hirgalo ayaa waxa uu ka dhigayaa ciidamada xoogga Soomaaliyeed kuwa ugu awoodda badan gobolka